السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد عبد الله muuqaalkan kooban waxaan doonayaa bal hadda xaaladda suuqa in aynu wax ka nidhaahno maadaama fiidiyowyadii kan ka horreeyeyba aynu suuqa falanqayn ku sameynaynay khaasatan afartii coin ee aynu kaga hadalnay fiidiyowgii kan ka horreeyey iyo kii kasii horreeyey suuqa cryptocurrency-ga runtii isbeddel aad u weyn baa ka dhacay waxaana ku dhacay crash ama runtii hoos u dhac weyn baa ku dhacay wuxuuna lumiyey ilaa 300 bilyan oo dollar wax u dhigma ayaa ka baxay markaa market capka suuqa cryptocurrency-ga runtii hoos u dhacaasi waa hoos u dhac disaster ah waxa kasii horreeyey oo isaguna crash weyn ku dhacay suuqyada stock exchanges-ka oo iyaguna lumiyey 800 bilyan wax ka badan hoos u dhac intaa leeg ku dhacay marka runtii hoos u dhacyo aad u waaweyn ayaa maaragtay suuqyadan ku dhacay shirkado waaweyn baa dhulka galay oo runtii hoos u dhac weyn ku dhacay sida Microsoft oo kale Nvidia qudeeda hoos bay u dhacday marka suuqyada runtii waxa ka dhacay crash xoog leh baa ka dhacay haddaan ku soo laabano marka falanqaynteennii afartii coin ee marka aynu wax ka sheegi jirnay waxaa ka mid ahaa coinka Afagas muuqaalkii kan ka horreeyey waxaynu sheegnay in maaragtay uu halkan ka samaystay wax loo yaqaano head and shoulder isla markaana waxaan sheegay in laga taxadiro oo dadka traderska ahi ay ka taxadiraan run ahaantii coinkan sidii aynu saadaalinay 100% wuu waafaqay baan oran karnaa oo waad arkaysaan crashku dabcan soo raacay intaasoo dhan buu soo dhacay waanana filaynay saadaasheenii hore haddaad dhegeysato ama aad daawato fiidiyowgeennii coinkan runtii waan filayey in uu maaragtay soo daadan doono waana sidaa dhacday kolley hadda supportkan maaragtay 16 ayaan isleeyahay u celin karaa hadduu sii dhaafana markaa waxay noqonaysaa inuu meel hoose tago laakiinse laabashadiisu waxay ku xidhnaan doontaa baatanka uu samaysto marka hadda waxba lagama sheegi karo waxaynu muuqaalada dambe ayaynu markaa hadduu rajo leeyahay ama ka muuqata inuu dub u laaban karo aynu ku sheegi doonaa laakiin saadaasheenii hore yani 100% sidii aynu rabnay ayaa dhacday oo marka head and shoulderkii waa shaqeeyey waxaynu isagana runtii falanqayn ku sameynay waayadan dambeba coinka runtii aan jeclahay Dogecoin runtii Dogecoin markii horena si fiican buu inoo ixtiraamay waxaynu oran karnaa cumaamadda ayuu nagu tuuray oo meesha aynu saadaalinay buu inooga kacay kadibna ilaa iyo runtii dhowr iyo 30% ilaa 36% oo faa'iido buu keenay muuqaalka hore waxaan ku sheegnay dadka traderska ahi runtii in ay uga baxeenba oo ay suuqa kaga baxeen resistance-kan 13 senti sababtu waxa weeye haddaad trader tahay dabcan suuqa iskagama jiraysid oo meel baad ka gelaysaa meel la wadaga baxaysaa waa sababta dadka traderska ahi mararka qaarkood ay ugu wanaagsan yihiin dadka investorska ah waayo qofka investorska ah waxaa laga yaabaa in muddo dheer suuqu ku laalaabto oo kolba dhinac maaragtay marna faa'iido marna khasaaro uu galo laakiin qofka traderka ahi suuqa meel buu ka galaa meel looga baxaa marka hadda dabcan dadka halkan ka qaatay already halkaasay kaga baxeen waxaa laga hadlayaa dadka traderska ah ee markaa akhlaaqda leh waxaa jira wax loo yaqaano traderka akhlaaqda leh iyo traderka aan akhlaaqda lahayn marka akhlaaqdu ma aha tii suuqa ma aha iyo dhaqankii suuqa laakiin waxa laga hadlayaa qofka traderka ah ee ixtiraama sharciga iyo qawaaniinta istiraatiijiyadda u taala ee aan suuqu iimaanka ka soo ridin ama aan iska daba ordin baa loo yaqaanaa traderka akhlaaqda leh marka traderka akhlaaqda lihi already wuu ka baxay oo intan case hadda soo dhacday ee kumaba jiraba dushu ka daawanayaa runtii coinanko dhan haddaad eegto tusaale ahaan sida coinka Solana oo kale oo si waaliya u kacay dabcan dadka groupka Soma Cryptona aan la soo wadaagay coinanka badankoodu waxay ka soo laabteen resistance marka dadka traderska ahi intoodii akhlaaqda lahayd ee iimaanka qabtay waa bay ka baxeen dadka investorska ahina way isaga jiraan oo qofka investorka ahi dabcan dee muddo dheer buu ugu talagalay markan horeba inuu suuqa ku jiro oo maaragtay adkaysi buu leeyahay laakiin runtii dadka suuqyadan ku hoogay ama dhibaatada weyn ka soo gaadha waa dadka aan traderkana ahayn investorkana ahayn
sida traderkana uma trade gareeyaan oo waxa weeye meel la kama galaan meel la kagama baxaan sida investorkana dulqaad uma laha waxaanu sheegnay qofka investorka inuu dulqaad leeyahay inuu suuqa sanawaad ku jiri karo qofka traderka ahina inuu maaragtay support ka raaco resistance kaga baxo yani meelo gaagaaban oo xaqlashahiisa ka qaato laakiin dadka labadan u dhaxeeya waxa weeye suuqu markuu soo daato qayliya gruubada haddaad aragtaan kriptada oo kale dad baa qaylinaya dadka noocaas oo kale ah runtii suuqu waa dadka aadka ugu khasaara ee ka baxbaxa maaragtay markuu la soo daato ka baxa hadhow meel sare ka gala correctionku markuu ku dhaco haddana isaga baxa dadkaas runtii waa dadka dhibaatada weyn qaba waxa wanaagsan qofku inuu shuruuc iyo nidaam leeyahay shuruucda iyo nidaamkaasna uu ku socdo marka hadda coinka Doge xoogaa uu soo dhaafay meeshii markaa supportkii hore anigu waxaan isleeyahay coinka Doge ma sii socon doono oo areadan buu ka laaban doonaa inkastoo hadda aanu maaragtay ina tusaynin wax reversal pattern ama wax muujinaya inuu suuqu dib u laabanayo isagana runtii dub baynu maaragtay fiidiyooga soo samayn doonaa haddaynu rajo ka aragno coinkan Doge oo coinan aad u jeclahay coinkii Afagas iyo kuwa kaleba waxa isagana ka mid ahaa coinankii aynu saadaasha runtii ka bixinay waayadan dambe coinka weyn ee muhiimka ah ee Ethereum sidii fiidiyoogii hore dadkii daawaday aan ku sheegnay ama fiidiyoo ka sii horeeyay waxaynu ka doonaynay markii horeba inuu inoo yimaado areadan 2724 ilaa iyo maaragtay areadan 2156 marka areadan zone baa loo yaqaanaa waa area u dhaxaysa waa area wax weeyaan support ah laba support dhexdood weeyaan marka taban areadaas aynu ka filaynay saadaasha horena waxaynu samaynay runtii Ethereum oo meelahan sare maraysa fiidiyoogu waa yaala dub baa loo daawan karaa waynu ku guuleysanay meelaha waa kii yimi meelahan ku laalaabtay fiidiyooga kan ka horeeyay markaa isaga waxaanu ku sheegnay Ethereum inaynu rajo ka qabno inay inoo taaban doonto line-kan runtii way soo taabatay waanay siiba dhaaftay oo hadda kan hoose xitaa taabatay laakiin weli waa rajay leedahay sababtu waxa weeye weli zone-kii bay ku dhex jirtaa inkastoo iyadana waxa weeyaan muuqaalada dambe aynu ka soo samayn doono haddii wax reversal ay ka soo baxaan ama wax muujinaya markaa in sare la aadi doono marka loo eego markaa istiraatiijiyaddeeda marka iyaduna runtii areaduun bay timi wax weyn oo masiibo ahi ma dhicin suuqana runtii si fiican buu soo daatay waana marka DCA-ga la sameeyo had iyo jeerba dadka suuqan ka ganacsada lacagtooda ayay wada geliyaan oo tusaale ahaan lacagtaadii haddaad meelahan ka gelisay sida candle-kan dheer ee cagaarka oo kale markuu samaysmay dad badan baa waxay u qaateen in Ethereum-ku ay cirka qaban doontaan ay soo laaban doonin marka haddaad areada ka gelisay lacagtaadii oo dhan dee hadda waxa weeye waa daawanaysaa waa iska fadhidaa laakiin haddii aad DCA macnaha qaabka loo sameeyo taqaanid haddoo kale dhibaata kuma hayso oo meelahan unbaa DCA ka samaynaysaa haddii xitaa lagula sii daato DCA kan unbaa samaynaysaa marka DCA-guna aad buu muhiim u yahay oo runtii waa nooc ka mid ah noocyada khasaaraha loo yareeyo faa'iidana loogu bedelo suuqyadanna runtii inagu ma maamulno inagu waynu ka ganacsanaa un laakiin inagu ma maamulno suuqyadan iyagaa ismaamula laakiin qof kastaaba wuxuu maamulaa oo mas'uul ka yahay waa lacagtiisa qof kastaaba lacagtiisa ayuu maamulaa laakiin suuqa adigu ma maamushid marka lacagtaada waxa la doonayaa inaad risk management samayso inaad markasta khasaarahaaga ka fikirto inaad markasta lacag haysato oo aanad lacagtaada suuqa ku wada daadin ama aanu suuqa iimaanka ka soo ridin oo waxa weeye aanad meel sare kaga boodin ama suuqa aanad daba ordin marka adigu lacagtaada ayaad maamushaa waxa loo baahan yahay lacagtaada inaad si wanaagsan u maamusho si markaa khasaarahaaga aad u yarayso ama faa'iido ugu bedesho adoo DCA samaynaya waxaynu kala runtii aynu falaqayn aan muddo dheerba ku sameynay anigu ilaa iyo 20giiba coinka weyn ee muhiimka ee Bitcoin oo runtii suuqa wata oo ah yani coinka suuqa hogaamiya oo hadduu daato suuqu wada daataa badankiisu hadduu kacana suuqu wada kacaa runtii waa meesha laga ogaado caafimaadka suuqa cryptocurrency-ga waa coinka ugu weyn uguna maaragtay sumcadda badan leh waa coinka Bitcoin haddaad xasuusataan muuqaaladii hore waxaan ka rajaynaynay
inuu soo gaaro maaragtay saboorka 48,000 ilaa iyo 38, waayo halkan isagana waxaa ka jira saboor kale. marka zoonkan ama areadan ayaynu ka rajaynaynay markaa inuu soo gaaro. laakiin muuqaalkan ka sii horreeyey waxaan runtii sheegay inay suurtagal tahay inaanu soo gaadhin. sababtu waxa weeye areadan ayaa ina khiyaantay oo waxa weeyaan wax u muuqda head and shoulder ayaa runtii ka muuqanayay inkastoo aanu samaysmin. waxaa kaloo runtii go'aankayga khalkhaliyey wararkii soo baxayey ku saabsanaa khaasatan bitcoin-ka. waxaad ogeydeen Donald Trump inuu sameeyey ballanqaadyo waali ah oo uu sameynayay bitcoin-ka haddii la doortay inuu waxyaabo badan u qaban doono. waxaanu kaloo arkaynay doorashada Maraykanka bitcoin-ku inay door weyn ka ciyaaraysay oo labada xisbiya dimuqraadiga iyo Republican-kuba ay lahaayeen community cryptada wax wanaagsan baanu qabanaynaa, waanu hagaajinaynaa. waxyaabahaasoo dhan iyo ETF-ka oo shirkadahan waaweyn ee maaragtay BlackRock ay ka mid yihiin oo iyaguna si xad dhaafa wax u iibsanayay. waxyaabahaasoo dhan markaan eegay ayaan isla armaan la soo gaari karaynin. laakiin hadda waa la soo gaadhay. haddii markaa mowqifkii hore runtii markii hore ee aan aaminsanaa in la soo gaari doono markaa 48, waxaan ku dhisayey halkan oo kale hadda waxaa ka jira haddaynu sawirno halkan waxaa ka jira waa flag amaba se waxaad oran kartaa waa nasiino amaba se waxa loo yaqaano correction. marka halkan correction baa ka jiray, halkana dhaqaaq baa ka dhacay oo bitcoin-ku mudday soo socotay ilaa iyo 25 ayay si toos uga soo carartay, kadibna flagaas ayay samaysay oo ama nasiino. runtii flagga haddaad aragto had iyo jeerba wuxuu u baahan yahay inuu gidaar adag madaxa ku dhufto, yacni meel support adag inay soo celiso. waana sababtan markii hore ku dhisayey maaragtay 48,000 ilaa iyo areadan aan lahaa wuu soo gaari karaa. sababta waxa weeye flaggan baan arkayey inuu samaysmayo. laakiin runtii saan soo sheegay bada suuqa waxyaalo badan, warar badan iyo waxyaabahaas ayaa soo baxay oo markaa aan si armaanay suurtagal ahayn. laakiin hadda waxaad moodaa inuu waafaqay maaragtay aragtidii hore ee technicalka oo technicalku ka guuleystay fundamentalkii iyo wararkii faraha badnaa ee aad ka wanaagsanaa. marka bitcoin hadda waa laga yaabaa inay areadan xoogaa ku yara samayso kadibna ay noo laabato ayaa la rajaynayaa. sababtu waxa weeye flaggu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha suuqa sii dira ee continuation patternka loo yaqaano ayuu ka mid yahay, waana kuwa ugu caansan buu ka mid yahay runtii dadku ay aadka u jecel yihiin. marka rajo fiican baa jirta runtii. suuqana saynu soo sheegnay waxa dee daadiyey maaragtay cabsi dadku ay ka qabeen maaragtay dhaqaale burbur, maadaama stockii aynu sheegnay 800 bilyan oo dollar inuu lumiyey, shirkado waaweyn qaateen, bangiga dhexe Maraykanka oo la filayay inuu maaragtay interest rate-ka uu yareeyo waxba samayn waayey, dagaaladan bariga dhexe iyo Ruushka iyo maaragtay Ukraine iyo waxyaalo badan baa runtii jira oo aan wanaagsanayn oo adduunka ka jira oo saameyn ku yeelan kara dhaqaalaha, ganacsiga iyo amniga. wadarkiisa Ingiriiska xitaa mudaharaado waaweyn baa ka jira oo runtii dad cunsuriyiin ay samaynayaan. waxyaabahaasoo dhan runtii waxyaabo dhaqaalaha u xun. laakiinse saynu rajaynayno bitcoin areadan haddii ay kusoo yara laabato ama hadda way hidgaraysay oo saboorka 48,000 way taabatay, laakiin waa laga yaabaa inay meelaha soo yara gasho. laakiin rajo wanaagsan baa ka qabaa technical ahaan. dubna dabcan falanqayn baan uga samayn doonaa hadday meelahan inooga samayso areadan reversal pattern ama waxa muujinaya in maaragtay ay si fiican u laaban doonto. waata khayrtaad baan salaamayaa. fiidiyowga intan ayaan kusoo gabagabaynayaa insha Allah. fiidiyow dambe isugu iman doonaa iyo falanqayno dambe suuqa ama saadaalin ay ku samayn doono. saadaashuna runtii waa wax adag marka la samaynayo oo maaragtay inaad sii sheegto wax mustaqbalka dhici doona. ilaahun baa ogaan kara waxa mustaqbalka dhici doona. laakiin saadaashu waa runtii waa shay wanaagsan in dadka la sii siiyo maaragtay aragti. laakiin 100% saa loo sheego ma dhacdo oo marar badan way khaldami kartaa, laakiin inta badan waa lagu guuleystaa. marka insha Allah saadaalinta halkaas aynu ka wadi doonaa xaaladaha suuqa iyo hadba wixii aan u arko inay faa'iido leeyihiin.
ama haddaan warka suuqa maaragtay in rajo fiican uu leeyahay waan la soo wadaagi doonaa aad iyo aad baan salaamay khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.